ما سوغانتا Soomaalida oo aan sheegay anu 4.5 uma qaybiyo sida siyaasadda oo markaan hebel sheego kuma khasbani hebel kale oo ka soo horjeeda ama ay cod yihiin inaan sheego uunku way isu socdaaye akhyaartiina timaada haddaan ooda ka jiito meel awaara la seexsho oo awrka gool qali waayo annaga axdiga iyo aaminkiiba furayna axmed waxa leenahay awrka gool caawa iyo habeenada dambaba waxa leenahay ari qali mayna axmed oo awrka gool baanu qalaynaa waxba axmed faarax cali da jaa maantiisa ku celcelin maaye nin baa la yiri maxaad u naaxi weyday nin weyda baa la yiri maxaad u naaxi weyday wuxuu yiri waxaanan u naaxayn xasrad baan mooskeedahay oo xaajaan geedkeedahay oo xarbi baan ninkii ahay oo maalin daran baa la yeedha oo xilaan qoodhoodahay buu sidaa daraaddeed naaxi maayo oo kaalmo badan baa igu bannaan dhammaantiin dhalinyaro iyo waayeel badan ma joogaan u malayn aniga un baa joogaan u malayn marka aad iyo aad baan idin salaamayaa waxaan kaloo aad iyo aad ugu mahadnaqayaa raggii halkan iga horeeyey oo ammaanta isdaba joogga ah oo aanan badankeed mudnayn halkan ka soo jeediyey waxaan u qaadanayaa kasii badi in la leeyahay tabarina iguma harin xaalkeyga uma fiicna waxa weeye waajib Soomaali oo dhan saaran laakiin waa fardu kifaaya waxa la yiraahdo oo kale oo dadka oo dhan ma wada qaban karaa hawsha ama waqti uma hayaan ama uma dhalanba oo ma jecla qofku wuxuu wax qaban karaa oo ku dhiiran karaa wax ka soo saari karaa waxa uu jecel yahay markaa aad iyo aad baan raggaa mar kale ugu mahadnaqayaa waxaana leeyahay fariintii waan helay wixii aan qaban karo oo dambe oo waa qaban doonaa haddii alla idmo aad iyo aad baan waxaan ugu farxay caawa aftahamada halkan ka muuqata oo aanan meel kale ku arag runtii waxaan ka qayb galay shirar badan baan ka qayb galaa waa tagaa waddanka intiisa badan marna idaacadahan dhegaystaa tvyadan dhegaystaa waxaan dhegaystaa wareysyo dad laga qaadayo waxaan dhegaystaa haddii alla kugu ron yahay dadaan isdhaamin oo iswareysanaya weriyihii iyo qof marka intaas oo idin waxa weeye weli ma arag runtii waayahan ima soo marnay aftaamada goobtaan aan ka dhageystay caaw ima soo marin hadday tahay maxamed bedeli hadday tahay saacir iyo hadday tahay hadii ku cabdiwaaxid iyo hadday tahay sheekha iyo cid walba macnaha af Soomaaligii aan anigu markaan barbaaray oo soo kacay lagu hadli jiray baa looga hadlay halkan caaw taa haddaan ka gudbo waxaan u imaanayaa aniga iyo magaaladan Hargeysa la yiraahdo magaalada Hargeysa la yiraahdo markii aan imid oo ugu horeysay cilmi baaris baan u imid ina yar baan ahaa da'dayda waxba hadda sheegi maayo waxaad artaan isku geegeysaan inaad soo saarta waxay ahayd 1972 intiinaan badankii ma idna dhalan waxaan u imid meel aan ka bilaabo maan aqoon inta lacag la soo siiyo xoogaa wasaaradda waxbarashadu ayaa waxaa la yiri Hargeysa tago af Soomaaliya markii lagu dhawaaqay weeye waxaad ka soo qabataa laba nin qowdan ducaale iyo faarax nuur hadda waa kii idin sheegay qowdan ducaale iyo faarax nuur qora ay yihiin ma aqaan anigu mana danayn jirin waagaas dadku inay niman gabyaa ahaayeen wuxoodii la qorayo oo la keenayo ayaa la igu soo diray Hargeysa markaan imid si aan ku ogaaday baad waan ogaaday inay isaaq yihiin laakiin dan laga lahaa oo kale hatta buugga ku qori maysid qowdan oo isaaqa ma oranaysid ama qowdan oo ciidan galaa lama ogolayn waxaan la ii tilmaamay oday la yiri ninkaasa ciidan gala aad u yaqaan arrimihiisa oo qowdan ducaale waa cabdiwaraabahan hadda yaalla oo xoog ah markaas cabdiwaraabe
wuxuu ii keenay maxamed cabdi la oran jiro oo biyiga ka keenay isagaa iyo haddii alla kuu rogaya nin la oran jiray nuur maxamed laangare la oran jiray isna maxaa iga gidhiisha gabayga ahaan geeraarkii ahaa ninka laawey beerta xorriyadda hotel yaroo ku yaalo 26 juun la yidhaahdo ayaan degay weli markaa ma gaarin oriental baan usoo wareegi doonaa lacagtu iguma filayn aan ku dego oriental bil baana haystaa wakti labadii nin markaan dhameeyaan cabdiwaraabo ku soo noqo markaasaan waahay labadii nin waa ka dhamaystay gabayadii waa ka duubay faarax nuur baa ii hadhay suyena kace maxaa la yidhaahdo har wanaago hilib waa weyn laga cunaayo iyo baruur buu intay dhex geeyey wuxuu yidhi waryaar arabow war ninkaani wuxuu doonayay qowdhan ducaaliye faarax nuur annagu qowdhan waa u sheegnay waxay seeda u sheega marka anigu waa yaryaraado yani arbaa lagu xiraa baan leeyahay mogtahay laakiin isagu dan kama lahayn lamana xidhin horta hargeysa markaasi ay ugu horreysay markii dambe oo aan imidna markii waxay iga horreysay markii lagu dhawaaqay af soomaaliga oo la yidhi intaan reer baadiyaha la qaban oo la aadin horta reer magaalka hala baro afka farta sida loo qoro afka cidna cid bari mayne afku markaa waa ladnaa oo ma ahayn sida maanta yaha ma u ahayn marka waxaa muhim ahayd waxay weeye in farta la baro dadka markaa kormeer baa aniga nin kale oo madax ii ahaayo axmed ashkir bootaan la oran jiray naloo soo diray oo inaan markaasaan ku wadhina ilaa berbera boorama iyo dhulkan baa naloo soo diray calaayax markaasna waa imid buuggayga aan ugu jeclahay oo aan haddii alla kuu ronayahay oo ku saabsan ismaaciil mire oo aan ka qoray 74 meesha aan ku dhameeyey waa hargeysa iyaduna bal horta taa qabsadoo orientalki ay ahayd meeshaan ku saxiix intaa markaan ka soo baxo marka waxaan leeyahay maanta af soomaaligii meelaha uu ku haray ayaa waqooyi ka mid yahay dhulkaan aan joogno ayuu ka mid yahay waxaa la doonayaa marka in loo guntado gobollada kale oo aan arkay wax aan ku arkay baan ku arkay laakiin oo aanan ka filayn waxaan waayey hal meherad oo af soomaali ku dhigan waa wada ingiriis sidee baad carruurtiina uga dhaadhicinaysaan inay afkooda ku faanaan oo jeclaystaan haddaydnaan ku barbaarin markay yar yihiin innaga waxaan nala baray waagaan yaryarayn in af soomaaligu ka fiican yahay afaf kale o dhan inuu ka baraaqisan yahay carabiga iskaba dhaaf aduu afafkaa kale dee waa qab laakiin cidna waxay buruuf garaysay ma aha laakiin qab bay ahayd ilaa nin raggii af soomaaliga aada ugu dheganaa nin ka mid a oo waagi dambe madaxa noqday markii horena SYL ahaa waxaa la odhan jiray cabdilcasiis inuu xirsi wuxuu yidhi magacayga saddexdu waa carabi weeye saddexdaba soomaali baan ka dhigayaa buuri oo maxaad odhanaysaa cabdilcasiis waxaan odhanayaa buuri biddo waaq ilaahay bidihii ilaahay wey biddo waaq waaq oo ilaahay soomaalidu lahayd intaysan muslimka noqon marka biddo waaq iyo cabdilcasiis waa isku mid nuur wuxuu yidhi xirsi nuur wuxuu yidhi ifiye biddo waaq ifiye xirsina wuxuu yidhi qardhaas markaa uu yidhi biddo waaq ifiye qardhaas baa magacayga la yidhahdaa maanta kadib waxay muujinaysaa yani sida loogu dheganaa afka maanta waxaa moodaa in laga faanayo soomaalida waxaa isku xirayaa oo dee hadda yani weli ay isku haysataa waxa weeye waa suugaanta ay wada jeceshahay oo dhaxalka ah iyo af soomaaliga waa kii hadda sheegayay maxamed bedel oo lahaa raxanweynti baa la yidhi afkiinu waa gaar waxay cidda tirina waa naqaanaa oo hadda cid soomaali dan kale ma aha waxaas adduunka waxaa dhibay iyo africa soomaaliya waa isku diin oo waa isku af oo waa isku dhaqan oo waa isku hiddo oo waxaasaa dhibay afrikana lagama helo dad saas kama jiraan kenya waxaa jooga 42 qabiil mid baa soomaali ah 42kaas soomaalidu waa hal qabiil kenya ma aha qabaa'il kale ma aha waxay nooga fiican yihiin laakiin hal qabiil markay yihiin 42kaasi hoos uma sarrifmaan
oo kikuyo waa kikuyo wax cid kale ma noqoto waa isugu mid innagu haddaan saa ahaan lahayn baan ficnaan lahayn baan is idhahdaa mararka qaarkood waaba la heshiin lahay oo dadkan wada dagaalamayo oo markii mid jaga loo dhiibo la yihahdo kaas ahaa waa reer hebel baa la siiyey hadduu reer hebel yahay dee reer hebelka hoose ma aha marka dhibaatada halkaa ka jirtaana waa qabyaalada weeye oo dhibaataa naga haysata anigana waa isoo gaadhaa maalin kasta sida raggana sheegayo dadki qabiil baa lagu anqariyey weli waagi hore waxaan oran jiray dadka waayeelkaaba qabiilka ayaa ku faran ilaahay amarkii dhalinyarada baa ka dartay hadda maxaa waxay indha dilacsadeen iyada oo lagu faanayo oo la barayo oo cadaawad loo abuurayo reer hebel iyo reer hebel iyo reer hebel markaasaa waxaa lagu leeyahay ninkii la oran jiray idaajaa markuu idaacadaha tago waxaas wuxuu sheegaa reer hebel ma sheego waana beentii ma dhegaysto dadku ka maqlay waaba waxaa la yidhi qolo anigu aan ahay baa la yidhi reer siyaad baa la yidhahdaa markaasaa la yidhi mid baa yidhi reer siyaad idinka iyo waalidkiina alla cadaab reer siyaad reer mudug buu ahaay markaasaa maxaa ka rabtaa sidii dadkaan ahaa mid baa wuxuu maqlayaa marka wuxuu maqlayaa iyadoo laleeyahay saasaa idaajaa sameeyo saas reer hebel ma sheego isagoon weligii dhegaysan oo waxba iga ogeyn oo dhegaysan buu leeyahay haddii alla kuri saas leeyahay anna markaasaan u sheegaa waxaan hebel soo adiga ma aha hebel soo adiga ma waagii dambe waa iska daayey waxaan ku soo koobay af soomaaligu suugaanta soomaalida oo aan sheegay anigu 4.5 uma qaybiyo sida siyaasadda oo markii aan hebel sheego kuma khasbani hebel kale oo ka soo horjeeda ama ay col yihiin inaan sheego kuma khasbani maxaa yeelay suugaanta soomaaliduna horta wax qof keliya lagu hadlayana waa ka weynta waana ka badanta inkastoo hadda ay gabaabsi yihiinba dadka wax la weydiin lahaaba taasna halkaasaan ku xirayaa